caadiyan caalamka marka tagtada iyo timaadada ay u noqoto tusmo guud waxaa la oran karayaa marna ma aysan noqon gayi iyo golo nabadeed waxaase docda kale loo oran karaa oo loo bareeri karaa dhihideeda inay ahayd golo colaadeed marka aanu si guud u xeerinna xeerarka dalalka iyo xurmo la'aanta xasaradaha guud ee ka jira caalamka maanta muuqaalkan waxaynu ku eegi doonaa haddii alla laga helo tiro intee la eg ayay haystaan 9 dal ee ku hubaysan hubka nuclear-ka kadib 35 sano oo hoos u dhac ah waxaa haatan muuqanaysa in 10 sano ee soo socda inay sare u kacayaan tartanka dhinaca hubka nuclear-ka ee u dhaxeeya dalalka caalamka iyada oo ay haatan sii kordhayso xiisada ka dhalatay dagaalka Ruushku uu ku qaaday dalka Ukraine 9 quwadood ee sida rasmiga ah ugu hubaysan hubka wax gumaada ee nuclear-ka ee kala ah Ingiriiska, Shiinaha, Faransiiska, Hindiya, Israa'iil, Kuuriyada Waqooyi, Bakistaan, Mareykanka iyo Ruushka ayaa marka la isu geeyo wadar ahaan waxay horaantii sanadkan haysteen ilaa 12,705 madax oo nuclear ah taasoo ka yar 375 xabo intii ay haysteen sanadkii hore ee 2021 bilowgiisa marka la tixraaco qiyaasaha uu sameeyay macadka cilmi baarista ee Stockholm International Peace Research Institute oo loo soo gaabiyo SIPRI tan iyo markii uu dhamaaday dagaalkii qabooba waxaa dalalka Ruushka iyo Mareykanku ay bilaabeen inay baabi'iyaan qaybo badan oo ka mid ah hubkooda nuclear-ka si hoos loogu dhigo khatarta uu hubkaasi keeni karayo hase yeeshee haatan waxaa muuqata in laga sii baxayo xilligii ay dalalka ku hubaysan hubka nuclear-ka ay heshiiska ku ahaayeen in hoos loo dhigo tirada hubka macadka ayaa isagu sheegay in xiisada u dhaxaysa dalalka ku hubaysan nuclear-ku inay haatan marayso halkii ugu sareysay ee ay gaadho tan iyo wixii ka dambeeyay markii uu dhamaaday dagaalkii qabooba Mareykanka iyo Ruushka ayaa iyagu iska leh 90% hubka nuclear-ka ee dunida yaala Ruushka ayaa wali ah dalka haysta hubka ugu badan ee nuclear-ka wuxuuna leeyahay 5,977 madax halka dalka Mareykanku uu haysto 5,428 madax oo hubka nuclear-ka ah dalka Shiinaha ayaa ku jira kaalinta saddexaad wuxuuna haystaa 350 madax oo nuclear ah Faransiiska ayaa haysta 290 madax halka Ingiriisku uu leeyahay 225 Bakistaan ayaa leh 165 madax halka Hindiya ay haysato 160 madax dalka Israa'iil ayaa isaguna haysta 90 madax Israa'iil waa dalka kaliya ee ku jira 9 quwadood ee ku hubaysan hubka nuclear-ka ee aan si rasmi ah u sheegan inay haysato hubka nuclear-ka ururka SIPRI ayaa sheegay in dalka Kuuriyada Waqooyi uu haatan haysto ilaa 20 madax oo nuclear ah waxaana la aaminsan yahay in dalkaasi uu haysto dhammaan agabkii uu u baahnaa si uu u soo saaro ilaa 50 madax oo kale oo hubka nuclear-ka ah